بسم الله الرحمن الرحيم وبرنامجي أخرس إيا أركتي وأن ما أنت كسو بندقيني كتابك وقري دكتور عبد الكريم بكار نقارهان وغيبتي دنبي كتابك شيخو كتاب كان وحاو بحيي وكتاب كان وحاو الله مقع بحي القراءة المثمرة وحاقرسك من الدرس كله كاسو مقع كتابك وتلمامايو وحاقرسكي أن كهليني سيدابو النقون كرامد من الدرس وحيابا بدن وحاقرسكو من الدرس كون نقون كرايو أما ميد فايدي لو كون نقون كرايو أيو دكتور كوشيغي بوغا waxaa kamida waxyaabaha uu kusoo buug uu ku sheegay doctorku in uu qaybiyo wax akhriska iyadoo loo eegayo qofku barbuska uu wuxuu aqriyo iyo danta uu ka leeyahay iyadoo loo eegayo wax akhrisku markuu qofku wax aqriyo qof waliba markuu wax aqrinayo waxa jira sabab uu aqriyo mid ba research sameynaya mid ba laga yaabaa inuu soo aqriyo si uu caajis baxo ama waqti isaga bixiyo qof laga yaabaa inuu cilmi gaar ah oo isaga u raadinayo inay jirto qofba si uu aqriyo marka wax akhriso dhan markii la isku duuduubo waxa uu doctorku qaybiyay inay yihiin 5 qaybood wuxuu ugu horeeyay wax akhris leeyahay al-qira'atu al-istikshafiyya wax akhris qofku uu rabo inuu wax ogaado oo qofku wax badan iyo macluumaad badan inuu ku ogaado oo rabo weeye buugga oo aqrinayo ama kitaabka oo aqrinayo xilligan aan joognana wax akhriska buugaagtii iyo wixii la qorayay markay bateen dadkii waxay ku qasbaysaa mar walba markay arkaan buugaag badan iyo kutub badan oo soo baxaysa inay jeclaadaan wax akhriska sidaas ay tahay qofku waxa looga baahan yahay inuu san buugga uu iibsanayo ama kitaabka uu iibsanayo uu san ku degdegin waayo buugaagta qaar ama kutubta qaar maanta waxa loo qoraa dana ganacsi oo danta laga leeyahay kaliya tahay in ay lacag iyo yani wax ganacsi ahaan loo isticmaalayo marka ay noqonayso wax maadi ah laga raadinayo saas darteed qofku inuu buugga uu iibinayo ku degdega maaha si uu san qofku markaas ugu dhicin inuu buug iska iibsado oo uu wax faa'iido ka helin waxa la rabaa qofku inuu ku dhaqmo arrimahan soo socda waxa jira kutubta qaarkeed oo la qoro oo loogu talagalay dad gaar ah buug walba la qoro dadka oo dhan loogu talagelin sida darteed waxaan ku qasboonaanaynaa inaan wax ku aqrino marka hore qiraa'ada al-qira'a al-istikshafiyya leeyahay waa qiraa'o ama akhris qofku uu rabo inuu ogaado buugga kan waxa uu ku saabsan yahay hadaba waxa uu sheegay markaas qodobo aad muhiim u ah oo looga baahan yahay qofku marka uu buugga iibsanayo inuu iska hubiyo inta uusan buuggaas qofku qaadan waxa kooka inuu qofku aqriyo hordhaca buugga waxa laga yaabaa dhalinyartu inay iska tagaan meelaha buugaagta lagu iibinayo marka ay ka helaan buug inay ka helaan oo jildigiisa iyo waxa kan magacan ku qoran laga helo kadibna laga yaabo ruuxu inuu iska soo iibsado dhibaatana wax akhriskiisa ay u geysato oo ka caajiso sidaas darteed si aan taasi u dhicin waxa ugu horeeyay markaad buug soo iibsanaysid laga rabaayo waxa weeye in aad buugga hordhiciisa aad aqrido hordhacuna ma aha buugga ciwaanadiisa ee waa buugga qoraaga markuu buug qorayo waxa uu sameeyaa hordhac uu ku sheegayo buuggan waxyaabihii sababuhu u qoray iyo dadka loogu talagalay marka wax akhriska hordhacu waxay faa'iido kuugu yeelanaysaa inaad ogaatid sababta uu qofkan qoraagay buugga u qoray oo mar walba qofka qoraagay uu ku sheego hordhaca iyo danihii uu ka lahaa qoraalkan uu buugga qoray sidoo kale faa'iidada ku jirta inaad hordhac buugga aqrido waxa kamid ah inaad ogaato buugga yaa loogu talagalay buugaagta la qorayo waxaan ku yiri cid waliba ma akhrisato buugaagta qaar yani cid walba loogu talagalay laakiin qaar kood waxa loogu talagalay dad khaas ah waxa laga yaabaa jaamacadda inaad dhigato field adiga ku gaar ah adigu dooratay sidaas darteedna aad markaa raadisid buugaag adiga ku gaar ah oo dadka kale aysan akhriskooda faa'iido u lahayn marka hordhaca buugga ayaa taas ka daaweyn kara si aadan buug aadan adiga lagugu talagelin aad ugu dhicin waxa kamid ah hordhaca buugga inaad aqrido faa'iidada ay leedahay inaad ogaato buugani
waxa uu ka hadlayo mowduuca uu ka hadlayo waxa uu yahay inaad ogaato buugta qaar waxa loo qoraa yani qof kale wax qoray ama wax qaldan ama qoray ama information qaldan dadkii ku soo dhex faafiyay buugaana aragtiyo qaldan ay ku jiraan inaad iska ogaato oo in la iska difaaco oo qaladaadkiisii la sheegaa loo qoraa buug noocaas loo qoraa jira kuwa arrimo ganacsi loo qoraa jira kuwa bulshada iyo maskaxdeeda iyo garaadkeeda kordhinteeda loo qoraa jira marka waxaad ogaanaysaa buugani mowduuca uu ka hadlayo markaad hordhaca aad buugaas aqrido adiga oo wali iibsanin waxa kale oo kamid ah inaad aqrido buug hordhiciisa markaad dhamayso inaad buuga ciwaanadiisa mar walba qoraa walba wax qoraay warqad waxa jirta hordhaca ku xigta oo contentiska buuga aad ku ogaanaysid buuga ciwaanadiisa iyo waxa kan uu ka hadlayo taasina aad bay muhiim u tahay xiisa ayay ku gelinaysaa waxaad ogaanaysaa buuga inaad ka mid tahay dadkii loo qoray iyo inaadan ka mid ahayn waxa kale oo ogaanaysaa buugan iyo waxa uu ka hadlayana taasina aad bay muhiim u tahay iyadana waad ka ogaanaysaa arinta saddexaad ee muhiimka ah waxa iyadu weeye buug waliba markii la qoro waxa la sameeyaa references buugta qaar xagga hore soo mariyaan buugta qaar gadaal bay geeyaan marka meel ku yaalaba ama buuga dhaxdiisa ku yaalo oo pageskiisa ku yaalo ama chapteradiisa waxa la rabaa inaad references kana ogaatid references waa qofkan qoraaga in meelahan uu wax ka soo xigtay ama buugan uu qoray afkaarta ku jirta qaar kamid ah meelaha uu ka keenay taasina muhiim bay ku tahay oo qofka dhiirigelin bay una sameynaysaa inuu buugi iibsado ama soo ogaado buugan iyo cid loogu talagalay inay isaga faa'iido u leedahay waxa kale oo kamid ah buugta qaarkeed dadka qoraay waxay sameeyaan chapter walba ama qayb waliba markay dhameeyaan waxay sameeyaan warqad ay summary sameeyaan ay ku soo koobaan baa jirta talafteedu inaad aqridaay aad bay muhiim ugu tahay waxaanad ogaanaysaa chapter walba ama qayb walba oo buugan kamid ah macnaheedu guud ee ku jiray markii lagu soo koobay aad aqrido qof buugii aragti ka qaatay baad noqonaysaa waxa kale oo kamid ah inaad aragti guudba buuga ka qaadato dhamaantiiba bay ku sahlaysaa inaad summary-ga loo sameeyay buuga inaad aqrido waxa kale oo kamid ah oo shanaad oo qofka muhiim u ah buuga intuunan qaadanin ama uusan iibsanin inuu aqriyo waraaqada buuga kamid ah ama page kamid ah buuga inuu dhaxdiisa uu ka aqriyo si uu ogaado buugan iyo waxa kan uu ka hadlayo marka qiraa'adu koobaad ee sheegnay intaas ay hoos imanayaan waa qiraa'ada qofku uu buugan iyo waxa uu ka hadlayo iyo waxaasan sheegnay oo dhan uu ku ogaan karayo waa taasina waa qofku inta uusan buuga iibsanin ama se lacag iyo dhaqaale uusan kaga bixin waxa weeye qiraa'ada labaad ee doctorku sheegay qiraa'adaas koobaad aad bay muhiim u tahay waa qiraa'ada maanta dad badan ama dhalinyaro badan ama dad badan oo wax aqriya laga yaabo inay dad badan markay akhriska nooca sameyn weeyeen inay wax akhriskii naceen marka buugaag aan iyaga loogu talagelin ama aan faa'iido lahaynba marka ay aqriyeen kadibna ay ku caajiseen inay wax akhriskii sida ku daayeen marka waa wax akhris aad muhiim u ah waxa kale oo kamid